Asalaamu calaykum. Macluumaad laga yaabo in ay tahay markii koobaad eed maqlayso daawasho wacan. Dowladda caalamka ugu yar dad yari iyo dhul yari waa dowladda lagu magacaabo Vatican, waxayna ku taallaa gudaha magaalada caasimadda Rome dalka Talyaaniga. Dadkii koobaad ee daahfuray taamuunta waa dadka Faransiiska. Dadku waxay hurdaan 3 meelood meel noloshooda ka mid ah. Noolaha loo yaqaano octopus ama akhtabuut waa noole leh 3 qalbi, dhiiggiisuna uu buluug yahay sababtoo ah wuxuu ka samaysan yahay maadada loo yaqaano hemocyanin taasoo ah nuxaas. Webiga caalamka ugu dheer waa webiga Nile, ka labaadna waa webiga Amazon. Ceelkii shidaal ee ugu horreeyay taariikhda waxaa la qoday 1859 waxaana laga qoday dalka Ukraine. Bisaduhu waxay leeyihiin 32 lafood dheg walba. Dowladda kaliya aan xuduud lahayn waa Bahrain. Hidiyaha gabdhaha ayaa ka koritaan badan kuwa wiilasha celcelis ahaan 1 ilaa 5 jeer. Ma ogtahay in uu ku jirto uu sii arko marxalado noloshiisa ka mid ah inta uu ku jiro uurka. Taasina waa sababta qofku u arko mawaaqif uu u malaynayo in uu hore u sii arkay. Waana wax lagu magacaabo deja vu English ahaan. Muslimiintii hore Andalus waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee sameeyay koofiyada ay xirtaan ardayda jaamacadda ka qalin jebisa, iyagoo saari jiray kitaabka Qur'aanka ah kuna dhaqmaya aayadda Qur'aanka ah ee wa fawqa kulli dhi cilmin caliim. Ma ogtahay in cunitaanka tiro isleeg oo timir ah isku bedelo sonkorow? Sidaa darteed ayuu Nebigu sallallahu calayhi wasallam inoogu dardaarmay tiro fardi ah si ay iskugu beddesho carbohydrate jidhka faa'iido u ah. Lacagtu kama samaysna warqado siday dadka badankood aaminsan yihiin. Waxay ka samaysan tahay suuf. Xanjadu waxay dawo ka tahay illinta marka basasha la jarjarayo. Intaas ayaan idiin soo bandhigay. Fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar, videogana like saar, asxaabtaada la sii wadaag, comment ka soo bixi. Aad iyo aad baa u mahadsantahay. Waa inoo video ka dambe.